سلام جايز. maanta muuqaalka xitaa banaanka ku furfurayaa waa daahayaa waxaa u socdaa waxaa rabaa inaa maanta lagu wax soo qabto meesha ka daahayana ma ahan horta galaas maanta wax galaasa ma jiraan free waaye laakiin laba shay aan rabo maanta inaa soo qabto waxay tahay buur waa meeshaan ma korkeeda noo hadlaya ku hadalkaa dhammeynaa kadib waa koraa so waxaa rabaa day 3 maadaama maanta firaaq iska ahay inaa ugu faa'iidaysto waxa labadan maalin soo dhaafay dhan idin dhahayo qodobkaas ka hadlaa markaa banaanku baxa ka hadlaa laakiin waqtigu ii saamix waa ma fahantiin sida u jeedaan shalab waa jeclaa inaan ka hadlo meel jugdigan aan joogay laakiin waqtiga ii saamix waaye taskiska ii yaala aad u badnaayeen sidaas darteeda waqtiga u waayay yes qodobka labaad ama shayga labaad aan rabo inaan qabto maanta waxay tahay qof aan raaci waa balansannahay waana meesha ka daahayo ahad wardayba qofkaas aan rabaa asbitaal isku raacno si aan luuqadda ugu turjumo marka meesha labadaas shay midda ku horumar doonana ma ogi waxay ku xiran tahay qofka aan balansannahay saas ku haleelna ma fahantiin Keep my head up when I act, head up that's my I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always guys qofkaas raacleen meesha ku balansanayna imaaday marka daas haleelna kadib isbitaalka u socono bas ama tariin wixii loo raaci lahaa ayaa raacayna till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do. A few moments later. hello ugu dambeyntii waa imaada guys meesha ay rabay inaan imaado oo jawiga degneed rabay inaan idinkugu sheekeeyo ma fahanteen so let's get it guys baarkigan mardhow waa la furay geedihiisa xitaa ma korooyin weli si fiican uma korin laakiin ani waxaa ku doortay waxay tahay weynaantiisa iyo jawiga degan aamusnaanta ma fahanteen hadda weli maana fiisan meelaa raadinaynaa so guys qodobadeena qodobka ugu horeeya first one wuxuu noqonayaa number 1 study abroad of course yes maadaama qof qurba wax ku bartaanahay dal dibadiisa jooga waxyaabaha la xiriira waxbarashada dibadda oo kale study abroadka farqiga u dhaxeeya qofka inuu dalkiisa wax ku barto iyo inuu dal dibadeed soo aado wax ku barto positive-keeda negative-keeda dark side-keeda bright side-keeda ma fahanteen sida ogtihiinbo
dadka qaar keliya iska dhaadhiciyey ama aaminsan qofku markuu qurba wax ku baranayo ama dalka dibaddiisa uu joogo kaleeto inay u kalkacsan tahay oo waxbarasho fiican helaayo kaaliska arag ee tahay uu raaxaysanayo uu qofkaas micnaha kaaliska arag aday wax walba haysto ma fahanteen laakiin saas ma ahan waxaa jirto daagsaad aad iyo aad u qaraar oo aad u xun ma fahanteen dadka intooda badan ka qarsan aysan arkin dhalinyaro fara badan oo nolosha ka dhacday waxyaabahay samaynayaan amase u nool yihiin markay aragtid aad ka naxaysid really so waxyaabahaas oo kale daagsaadka study abroadka iyo brightsidkeeda dhinaceeda iftiinka ee quruxda badan iyo qofka markuu wax barto suu wax u qabsan kari waxyaabahaas aad farqiga u dhexeeya guud ahaan positive iyo negativekeeda maxaa kuu soo har fursadaha waxbarasho ee dalka dibaddiisa ka jira waxyaabo fara badan oo ku saabsan study abroadka ayaan halkan uga hadli doonaa insha allah qodobkeena labaad number 2 wuxuu noqon doonaa guys trading and which is a really topic I needed to talk about a years and years before ma fahanteen waa topic ama ciwaan ama industry aan aad iyo aad u jeclaa bilooyin iyo sanado fara badan ka hor inta meel aad soo fadhiisto aa ka hadlo markaa waxaan bilaabayo kale marka magaca trading laga fiirinayo waa guda balaaran yahay waa magac weyn oo waxyaabo fara badan ay hoos yimaadaan laakiin trading qaybta aniga aa ka hadli doono waxay tahay trading currencieska qaabka wax usoo gudbin doonana ma noqon doonto qaab ku saabsan macalinimo ama inaa koorsa soo diyaariyo aa ku baro kale ama lacag waxaas aa ku qaato keliyaad waxay noqon doontaa my journey meeshaa u fikiraayo trading qaabka u arko waxaan isticmaalo meesha aa ka galo meesha aa ka baxo fikradahayga toodiskayga everything about trading currencies insha allah marka adiga hadda bilaaway sidoo kale suuqa ama hadda mar dhow aa bilawday runta waxyaabo fara badan ayaa kuu faa'iideyn doonaa hidda subscribe button ama haddii kale aa tahoo kale qof dhexdhex marooyo oo safarkan mar hore soo bilaabay ani ila mid tahoo kaleeto waxaa ku dhihi lahaa adigana ani adoo naskuetal galabo dadka laisku keetal galaana واسكو سي لوgu darsanayna ma faantay journeygan waa isla sii wadanayna until we win insha Allah macnaha waxa isku faa'iideynayna adigana waxa taqaan ay faa'iideynaysa anigana waxa aqaan ku faa'iideyna insha Allah waxyaabo fara badan ayaa halkaan ku kul faa'iideysan doona oo trading ku saabsan goolkaygu ugu weyn waxaan trading ka soo gudbinaayna waxay tahay keliyata my journey as a trader so guys meeshan soo ufdii buurna ku diray ma fahanteen meeshan soo afdhiin soo weynta macquul ma qiyaas kari indhay meel kala badan ay qawnooyin soo hurdaab i qawad soo meeshan ufdii walaa marka hada jawiga noo bedelo soo waragtiin so let's go man qodobka saddexaadna wuxuu yahay vlogs waxa la dhaho runtii taqaaniin dhamaantiin sometimes soo baxaa meel aad u qurux badan aad tagaa waxa jeclaystay inaan vlog soo duubo si aniga iyo idinkaba aanan caajis iyo boring u dareemin ma fahanteen soo qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa vlogs stay tuned man guys wallahi meel qurux badan aad tagay anoo isdhahayo meeshaan jawi ku qaado muuqaalka inta ku soo xiro kaamirada igdanta ma fahantiin kadib cafeteriagaas aa imaaday fresh shopkaas iska imaaday ka jarjareystay markii yarkii caawiyeen waa kana kankey wallah sana nasıl teşekkür ediyorum bilmiyorum ki vallahi Alışım hiç önemli değil. Bizim kapımız herkese açık. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür Cansın. ediyorum. Eyvallah. Ne demek? Gerçekten. Sağ İyi olasın. akşamlar. Allah'a emanet. İyi akşamlar. Bu akşam ne guys wallahi sunset aad u qurux badan ay dhaafitaa isdhahay meesha markaad tagtid sunsetka muuqaalku ku soo xiro meeshaas aad ku quruxda badan laakiin isma dhicin fahanteen kaamirada dantay hadda waxay noqonaysaa intaa ka gaarsiin karo inaa ka gaarsiiyo hoos banaanka daag ayuu sii noqonayaa marba marka kasii dambeyso anna wax laatin ah ma soo qaadan wax ku duwo hadda wax yar meelahana muuqaalo cinematic ah oo fudud inaa kasii duuro waa maadaama aad u qurux badan tahay marka benim dostum gördüm saaxiibkayga arka guys ninkaan intaad kaamirada iga dansanayda meel ila fadhiyey oo iska sheekaysaneen gufan liig waaye sahibi geldi. meel wuxuu ka shaqeeyaa gufan liig macnaha waardiyaha oo waxaa waaye baarkigan ilaaliyo xoogaho asay mashquuliyay inta kaamirada iga dansanayd si fiican benim arkadaşımlar bir şey söyle kanki Merhaba, selam. başka yok mu yeter mi tamam senin adın ne söyle Benim adım Sertaç. yeter güzel isim benim adım Sayfullah memnun Merhaba oldum Seyfullah, ben de memnun oldum. Telli. inshallah iyi akşamlar kolay İyi gelsin akşamlar. gule gule kaasina wuxuu ahaa laacib i mashquuliyey intaa keligii meel iska fadhiyey waa waardiyaha meelahan ka shaqeeya ma fahanteen needidin kankii Doktan alın. evet vlog kanalı benim arkadaşım ne söylüyorsun Abone olsunlar. teşekkür ediyorum iyi günler marka guys dad aad iyo aad iskaaga qalbi furan aa la joogaa meelahaas meesha iska soo dhexgalay aad u shidan tahay ma fahanteen marka hadda meeshaan muuqaalo yar oo cinematic ah ka duubayaa markaas kadibna
guys hadda waxaan isku dayaa wiifooyadan mid ka mid ah inaan fuulo hadday ii suurta gasho kulli waa la buuxaa jaam waa ilaa safkaas dheer kuwa marka meeshaan labada qof fadhiso iyagaa shukaansanaa iyagaa weydiinaa inay ogol yihiin salaam ganjileer oturabilir miyim tamam teşekkür ediyorum ne diyeyim şimdi Her şey istersin. Evet şimdi salıncakta sallanıyor arkadaşlar. Şu an bayağı eğleniyor arkadaşımız. benim aslam kardeşim hadda waxay weydiiyey youtube-kayga laakiin instagram-ka linkiga kasoo saaraya marka hore buyoja 11 benim takip et seni takip edeceğim tamam mı? Tamam. Şu linki yaptım ondan sonra benim kalam orada bakacaksın. So guys qodobkeena number 4 wuxuu noqonayaa traveling. So travelka waa waxa jeclahay waa wax hadda mashquul ah lahayn ama wax baran lahayn ama milyaneer maanta ahaan lahaa oo kale everyday waa travel gareyn lahaa ma fahantiin ilaa maalinteeda iga imaanayso adduunkan aan ka tagaayo maalin ilaa keen waa safri lahaa daawooda saa u jeclahay leh so mar hadday noqoto inaad safar galo ama meel aad dalxiis u tagaayo ama whatever ee tahay in case waxaad safarkaa ku galaa waxay doontaa ahaatee insha allah iyadana muuqaalada aan youtube kanaalkayga kusoo gudbin doono traveling qayb ayay ka mid noqon doontaa so vlogiska iyo travelka uma soo laba qodob oo sas u waaweyn ma ahan sida tradingka iyo study abroadka oo kale so waxaa la dhihi karaa labadan qodob waxay decoration ama dhaxtaal u yihiin labadaas qodob kale ee janalkayga ay ku tiirsanaan doono ama inta badan aan kusoo gudbin doono so stay tuned haddaa soo khulaaseeyo qodobada waxay kala ahaayeen study abroad trading vlogs and traveling so haddii intaas mid ka mid ah xiisaysid so guys haddaa intaas qodob aa soo sheegay mid ka mid ah xiisaysid ama aad jeceshahay ha noqoto xiisacayn ama for educational purpose sida study abroadka iyo tradingka marka ama hadda kulli ila xiisaysidba oo hal qodob aysan ka ahayn oo kulli ay ila xiisaysid sida anoo kale aad tahay hal waxa ku sheegaya oo sir ah sugiyaana la maqlin let me close to you halkaas mid waxay tahay guys dhegeyso hit the like button and subscribe button goes si aadan u misgareenin all the video soo socda hadii kale waa misgareynaysaa faint for sure haddaad subscribe saaran all the video waa misgareynaysaa si aadan u misgareenin waa inaa muuqaalka hid hello nasılsınız iyi misiniz Oo, sen Türkçe biliyorsun. ben Türk'üm ya o yüzden biliyorum iyi akşamlar so guys hit the like button and the subscribe button si aad muuqaalada u misgareenin like haddaad saartid muuqaalka deriskaaga arkayaan fahantay gabadha wiilka kugu dhegan guriga iyo gabadha kugu dhegan guriga way arkayaan for sure marka adi waxa muuqaalka maanta kuu soo gaaro energy ku baxay daala ku baxay qarashaa ku baxay waqtiga ku baxay everything you know ma sahlana editkiisa everything marka waxa kaliya ee aad laga rabo waxay tahay inaad abaalmarintiisa aad ku siisid like taasoo aad waqti ma kaaga baxayso qarash ma kaaga baxay energy ma kaaga baxay so just one click so give me that bro give me that please give me that for motivation si muuqaaladan iyo wax ka badan oo ka qurux badan aa u soo tabiyo ama u soo gudbiyo sorry guys muuqaalka idinka soo dhaxgal saacadana u jeediin waxay maraysaa hadda waa 4 oo habeenimo 10 saac habeenimo wax yar dhiman 4 wax yar dhiman anuu istaad deskiga iska fadhiyo oo muuqaalka hadda daawanuu siin edit gareenayo I mean dabku saaran yahay muuqaalkan hadda daawanuu siin hawshiisa socoto markaas aad duuwaye qodob waa jira iloowe arbinaan marka ugu dambeysa sheego laakiin waa iloowe ma fahanteen kaanuu edit gareenaya soo xasuustay gadaalina kaga daro qodobkaasna wuxuu yahay positivity-ga wanaagga guusha horumarka law of attraction-ka xeerka soo jiidashada I know lots of you hadda ma fahmaysiin qodobadan waxa ka wado laakiin hadhow markaas si toos u gudagalno waa si diib u fahmi doontiin insha allah bat hadda hal qodob kusoo koobo waxay noqonaysaa ismar horinta nafeed yes ismar horinta nafeed haddaad ina baraadkeynaysaa u qaldin weli waa haleelahay ismar horinta nafeed barashada af soomaaliga saan hal maaha oh my gosh you're just keep it bro okay self improvement I hope you get the point guys haduu ay fahanteen rajayna ismar horinta nafeed waxaa ka wadaa self improvement qodobadaas soo sheegay study abroadka tradingka vlogska travelingka self improvementga waxaas oo dhan haddii ku jiraan wax aad ku xiisa geliya ha ka welwelin in la soo dhig waayo in la soo edit gareyn waayo in fikrad qurux badan la keen waayo waxaasna aanay shaqadii tahay all that's my job ha ka welwelin laakiin aad shaqadaada ka soo baxa what's your job waa ogtahay hit it and go back to your video daawasho wacan enjoy it هذا الصلاة دي الأدمية guys مساج كان رادينينا
markaa yeelnane dadkan doona insha allah dadkan way yaaban yihiin ninkan muxuu sameynaya isdhooyin qof kasta u fiirinaya war may khasnaa xishoona acting wax ma ku duubi karin maanta wallahi ma naga xishoonaya madaxiina korkiisa fuulaataa saa wax ugu duub waa fiiri kartiin le indhaala idinka soo dhacayo adig maayaa kuwa maya geesay taaganaa la hadlooyaa 2 sano ka xishoonaya waraa youtube ka maqnaa wax ma soo duubi jirin ka hor Allahu akbar قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفاتحة ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا مترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحد ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفاتحة ليصبح همة تروي عن العليا guys salaad ilaah anaga aqbalo dhamaanteen alxamdulilah meel kasta joogno saacad kasta tahay xilli kasta tahay wax kasta qabayno it doesn't matter ma fahanteen we must pray so kadib waxaan xooganaa soo dhacday halkaan aan ku soo leexday dadka jibiya qac siinaya kadib Drake xaafada ay doonaan ma fahanteen Drake waxaa ka wadaa toos xaafada ay doonaan turkidana waxay dhahaan Drake toos marka muuqaalkan hadaa ka heshay ha ka iloobin like so dadka jibiya waa dhamaarawa day 3 na halkaan ayay ku dhamaanaysaa after long day guys I would like to wrap up the video here so see you tomorrow day 4 hadaan khaldaneen so see you tomorrow guys muuqaalka halkaan ayuu ku eg yahay bye bye